saaxiibadayda qaaliga wiilasha iyo gabdhaha qiimaha badan guushu waa dhowdahay waxaan ku faraxsanahay marka waajibaadkaas qarankeena soo qabateen kuma filna kaliya kalimadan afka idinka dhaxno inaan idinkaga mahad celino laakiin qalbigan idinkaga mahad celinayna dadka Soomaaliyeed qof walba oo muwaadina oo Soomaaliyeed oo meel walba joogtana sidaas oo kale ay qalbiga idinkaga mahad celinaysaa ma malaayikartiin hooyooyinka Soomaaliyeed iyo abayaasha Soomaaliyeed wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee deegaanada aad soo marteen ay argagixisadu ay muddada dheer dul saarneeda ku nool maanta farxadda ay dareemayaan ma malaayikartaan ducada ay maanta idinla garab taagan yihiin ma malaayikartaan ogaada wax la soo koobi kara ma xaqiiqatanka waxay ku jiifaan nabad ayagoo aan ka baqayn meena wadada loo geliyo ayagoo aan ka baqayn subaxii in loo yimaad naftooda iyo maalkooda wixii la doono laga sameeyo ayagoo aaminsan waxa ay maanta heestaan inay ayagu leeyihiin oo cid uga cagulay karta aysan jirin waa ku mahadsantihiin taariikhduna waa idin xusi doontaa ogaada taas dadka Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed waxay garwaaqsadeen dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed badbaadintooda inay ku jirto gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed gacantooda taas ayaa keentay ciidankan qiimaha badan in go'aan la qaato maalinkaas ayuu isbedela magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalinkaas ayay isbedeshay rijada dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan in wiilashooda ay gabdhahooda ay xuray doonaan oo ay cadawga ka dul qaadi doonaan maanta ma rumowday ma rumoobi maanta way rumowday yaa idan la socda maanta on Allah ka ahayn qof kale miyaa idan la socota aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii isbedelka aad samayseen nafurnimada aad samayseen geesinimada iyo kartida aad samayseen waan ogeynay gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed hadday gartaan oo garwaaqsadaan inay danaha ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyaan inay ka mir dhalinayaan saaxiibadayda qaaliga wiilasha iyo gabdhaha qiimaha badan guushu waa dhowdahay argagixisaduna way jabeen godadkii ay rijada ka dayayeen waad ka soo bixiseen waxa ay heestaan waa laba option gacanta geesiyaasha qaranka oo adinka ah inay isu soo kiin diibaan oo gacmaha taagaan oo yiraahdeen waa toobad keenna ilaahay baan u soo noqonnay ummadeena u soo noqonnay iyo inay meesha ku dhintaan wadiiqa kale miyaa u furan wadiiqa kale uma furno oo wasan idin sheegay dhaawacooduna adinka soo aragteen geedahow ku hoos dhiig baxa hadda aagi aad ka soo baxdeen kadib waxa la sheegayay kuwa in hawdka ku dhax dhuunto geeda hoos galay say u rafanayeen aad moodid meesha faas in la qaata la falay ku nafbaxeen meesha bal qiyaas nolosha ay ku jiraan nooca ay tahay waa ka xunnahay inay dhibaatada noocaas ku la dhacdo dhibaataynta dadkooda iyo dalkooda laakiin waa ku qasbannahay gacanta ugu adag inaan ku qabanno si aan uga badbaadino qarankeena iyo ummadeena waan idin mahad celinayaa runtii lama soo koobi karo farxadeena waan ku faraxsanahay wajiyadiina waan ku faraxsanahay la joogiina waan ku faraxsanahay badqabkiina waan ku faraxsanahay moraalka iyo niyadda aad u haysaan suulinta iyo dabargoynta cadawga dalka iyo dadka Soomaaliyeed waana idinku amaana waxaan idin leeyahay ilaahay ha idin karaameeyo waad karaamaysan tihiin ummadiina dhaxdeedan waa ka karaamaysan tihiin qarankiina waad u karaamaysan tihiin Allah subhanahu wa ta'ala ha idin xafido wax yaraan noo haray saaxiibadayda qaaliga dhulka noo haray waa laba qaybood meel yar geedada hoo yar aan aad u weynayn oo hawd hoo yar inay meeshan ku sii jiraan laga yaabo hoon aad u sii badnayn oo sidoo hore aan ahayn laakiin ogaada god haday galaan xataa waxaan aaminsanahay inaad uga dabagelaysaan god sii yaalo qodan oo mugdiya xataa haday galaan inaad uga dabagelaysaan aan aaminsanahay waana soo aragnay waana uga dabagasheen waana ku mahadsantihiin